Tigidda caalamiga diyaaradaha ee xaamid caasimada dalkan Qatar ee Doha ayaa soo caga dhigatay diyaarad sidii ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyri wafdi oo horkacay ay kamid yihiin wasiirka dastuurka wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish waxaana soo dhaweeyay wafdi ballaaran ee ka socday dowladda Qatar iyagoo u soo gaaray Doha ka soo qaybgalka madasha Doha ee sanad walba goortaan oo kale lagu qabto Doha waxaana xusid mudan ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka labadii sano la soo dhaafay oo ka soo qaybgalay shirka Doha Forum waxaana madashaani ka soo qaybgalay wufuud ballaaran ee ka kala socota wadamada caalamka iyadoo lagu gorfeyn doono arrimo badan ay kamid yihiin ganacsiga amniga tiknoolajiyada hadaba danjiraha u fadhiya Soomaaliya dalkan Qatar Mudane Cabdirasaaq Faarax Cali ayaa saxaafadda uga warbixiyay safarkan iyo waxa uu xigi doono ra'iisul wasaaraha shirka kadib bismillaahir rahmaanir rahiim waxa magaalada Doha ee dalka Qatar soo gaaray maantay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyri iyo wafdi uu hogaaminayo si uu uga qayb galo shir sanadlaha lagu la yiraahdo Doha Forum ee lagu qabto dalka Qatar sanad walba kaas oo ay ka soo qayb galaan madax fara badan oo caalamka ka kala socota madaxweynayaal iyo ra'iisul wasaareyaal bale wuxuu bilaaban doonaa berito oo 14 bisha ah insha Allah ta'ala laba maalmood buu soconaya ra'iisul wasaaruhu wuxuu ka jeedin doonaa khudbad dheer oo uga warrami doona madaxda halka isugu timid xaaladda Soomaaliya iyo waxa uu qabsoomay iyo caqabadaha hortaagan iyo waxa ay higsanayaan insha Allah ta'ala inay gaaraan termkan inta ka hartay ka baadi markii uu dhameeyo khudbadda insha Allah ta'ala shirkuna dhamaado wuxuu la kulmi doonaa ra'iisul wasaaruhu dhigiisa dalka Qatar iyo wasiirka gaashaandhigga ahna ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Qatar iyo madax kale oo ka tirsan dawladda Qatar si ay uga wada hadlaan masaalixda labada dal ka dhaxaysa iyo wanaajinta xiriirka labada dal iyo xog isweydaarsi inta Ismaan Indos TV-ga caalamiga Universal TV caasimada Doha.